محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكالمي walaalka kalik si ay u dhiirigeliso waa qisooyinkeeni taxnaaha ee sooyaalka suubana sallallahu alayhi wasallam qaybtii luqada carabiga waa luqad mug weyn kuna haboon in lagu soo dejiyo waxyiga Allah subhanahu wa ta'ala iyo risaaladiisa laguma talagalin carabta oo kaliya ee wuxuu ugu talagalay dadka iyo jidka oo idil sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay inay noqoto luqad lagu dhaqmo xilli kasta ma jirto luqad la mid ah luqada carabiga oo sidaas u mug weyn una dhowrsan oo aamilmin marka la eego muddada ay jirtay waxaana shaki ku jiro inuu Allah subhanahu wa ta'ala ogyahay in luqada carabiga xilliyada kamid ah laga faafid doonaan doona sida xilligan aan ku jirno oo kale luqada carabiga waxa ka horeeya xagga tirada dadka ku hadla luqado badan oo ay kamid yihiin luqada ingiriiska luqada mandarin ee looga hadlo Shiinaha iyo Afindiga laakiin sida ay tahay waa luqada ugu hodansan luqadaha caalamka waa luqada ahlu jannada waa luqada uu Allah subhanahu wa ta'ala u doortay kitaabkiisa waa luqada kaliya ee aad ku arkaysa in hal macno lagu cabiri karo ama lagu sheegi karo tobanaan eray oo kala duwan oo isku wada dhigmo tusaale cabqarigu wuxuu leeyahay 4000 oo magac seeftu waxay leedahay 1000 magac ratigu wuxuu leeyahay 1000 magac libaaxu wuxuu leeyahay 500 oo magac dabacadu waxay leedahay 200 oo magac malabku wuxuu leeyahay 80 magac sida awgeed culimada tafsiirku kuma dhergaan in ay mar walba macno hor leh ka soo dhiraan erayada ku jira aayadaha quraanka ahkaamta iyo erayada quraanka waa mid had iyo jeer casriga la socon karta